kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida oo aanu idinku soo qaadno dukumiintiyada iyo xogaha muhiimka ah tixraacooda dagal kasta. waxaan idinku soo gudbin doonaa waxa ay salka ku hayso colaadda gaarka ee ka dhaxaysa Suuriya iyo Israa'iil ee aan ka dhaxayn dalalka kale ee Carbeed, iyo sida Suuriya ay isugu diyaarinayso dagaal weyn oo lala galo Israa'iil. taageerada Suuriya iyo Iiraan iyo xogo kale ayaan idin soo gudbin doonaa. عملية السلام ما يفتو التاريخ 25 bishii Maarso 2019 ololaha doorashada ee cusboonaysiinta baarlamaanka iyo xukuumadda Israa'iil ayaa marayay meeshii ugu sarreysay. adduunkuna wuxuu si xiise leh u sugayay faahfaahin buuxda oo ku saabsan waxa loo yaqaano heshiiska qarniga, halka Washington ay rabto in ay ku soo rogaan Carabta si ay u soo afjaraan qadiyadda Falastiin. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo lagu daba taagnaa kiisas musuqmaasuq ah garsoorayaasha dalkiisa waxa uu gadaal iska taagay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, wuxuuna eegayay habka loo saxiixayo go'aanka aqoonsiga Mareykanka ee madaxbannaanida Israa'iil ee Golan Heights. tallaabadani ayaa timid dhowr bilood kadib markii Mareykanku uu safaaradiisa Tel Aviv oo u raray Qudus, balse waxbaa ka dhigaya buuraha Golan Heights muhiimad gaar ah maadaama ay ka mid tahay dhulkii Carbeed ee baaxadda weynaa ee Israa'iil ay qabsatay dagaalkii 6 maalmood ee Juun 1967. laakiin Sinai waxay noqotay Masar. Gaza waxay eriday Israa'iil inkasta oo lagu hareeraysan yahay. Jordanna waxay gashay heshiis nabadeed oo lala galay Israa'iil oo la mid ah Masar. xitaa degsimooyinka qaar ka mid ah daanta galbeed ayaa goobjoog u ahaa qayb ka mid ah ka bixitaanka Israa'iil. kaliya buuraha Golan Heights ayaan ku socon xorriyaddooda. gorgortankii istaagay guga Carabta kadib shirkii nabadda ee lagu qabtay caasimadda Spain ee Madrid 1991. wadaxaajoodka Suuriya iyo Israa'iil waxaa lagu furay buuraha Golan Heights, laakiin waxay ku dhammaadeen guuldarro sababtoo ah dalabka Suuriya ee dib u soo celinta buuraha, taa oo Israa'iil aysan aqbali karin. muranka khilaafku wuxuu ku saabsanaa ka bixitaanka Israa'iil ee xuduudihii dagaalkii bishii Juun 1967 iyadoo loo eegayo dalabka Suuriya ama sida uu xusayo heshiiska xuduudaha caalamiga ah. xilliga Israa'iil waxay aqbashay mabda'a ka bixitaanka Golan Heights, laakiin khilaafku waxa uu la xidhiidhay faahfaahinta, waxaana la rabay in la bilaabo wadahadal cusub 2011 si loo xaliyo dhibaatada Golan Heights. laakiin waddadii ayaa istaagtay markii uu qarxay kacdoonkii iyo caburidii dhiigga badan ku daatay ee Suuriya ee nidaamka Bashar al-Assad 1923 ama 1967 ee soodimaha. markasta oo albaabka loo furo wadaxaajood, Israa'iil waxay ku dheganayd ka bixitaanka iyadoo la raacayo xuduudaha caalamiga ah ee 1923, halka Suuriya ay ku adkaysatay inay ka baxdo sida ku xusan xuduudihii 1967. sirta ku adkaysiga Israa'iil ee khariiradda ee 1923 ayaa ah in ay hoos u dhigto khariiradda Tabariya ee maamulkeeda, waxayna xuduudda Suuriya ka ilaalinaysaa 10 mitir waqooyi bari xeebteeda. xaaladan ka hor dagaalkii 1967 beddelkeeda waxay Suuriya siisay xaq inay uga faa'iidaysato biyaha harada iyada oo lagu salaynayo heshiiskii xadaynta xuduudaha oo meesha ku jiray ilaa uu ka dilaacay dagaalkii Juun 4 1967. muhiimadda taariikhda 1923 waxay ku jirtaa xaqiiqada ah in ay ka hadlayso ka bixitaanka Ingiriiska ee gobolka, maadaama ay ka tagtay buuraha Golan Heights oo ay door bidayso Faransiisku, taas oo ka dhigtay in ay u gudubto Suuriya kadib dhammaadkii muddadii Faransiiska ee 1944. dagaalkii weynaa ee dhulka kadib dagaalkii adduunka, inkasta oo ay tahay juqraafi ahaan iyo dabiici ahaan oo ka dhigaysa. ilawaraedyadu waxay ka hadleen iyadoo ah Golan Heights goobtii ugu badnayd ee dagaalka dhulka ee taangiyada ee bini'aadamku ogaadaan ilaa dagaalkii labaad ee adduunka. fikirka wadajirka ah
ee Israa'iil ee buraha Golan High waxay leeyihiin muhiimad gaar ah inkasta oo ka bixitaanka Israa'iil ee degmooyinka qaarkood iyo marinka Gaza ay ahayd mid dhacday 2005 iyada oo lagu daboolayo taageerada ballaaran oo ay ka helaan dadweynaha reer Israa'iil midkoodna aftida ma soo bandhigin rabitaanka reer Israa'iil ee ah in ay aqbalaan ka bixitaanka ciidankooda Golan High waxaa barbar socday wadaxaajood lala galay Suuriya 1990 banaanbaxyo waaweyn ayaa ka socday gudaha Israa'iil si loo muujiyo diidmada ka bixitaan kasta sharaxaadda ugu weyn ee ku adkaysiga Israa'iil waxay weli tahay militariga iyo cabirka istiraatiijiyadeed taa oo sharaxaysa rabitaanka ciidanka Israa'iil ee ah in ay kaga jawaabaan xoog daran weerar kasta oo bartilmaameedsanaya Golan High si kasta ha noqotee dagaalka Suuriya ay la kulantay sanadihii la soo dhaafay kadib markii uu qarxay kacdoonkii 2011 wuxuu ka dhigay guutooyinka Xisbullah ee Lubnaan in ay degaan dhinaca Suuriya ee xadka u dhaxeeya Golan High iyo inta kale ee dhulka Suuriya dagaalkii koobaad ee adduunka kadib oo horseeday daciifnimadii khilaafadii Ismaaniyadda iyo dhicitaankeedii buraha Golan High wuxuu u hibeeyay reer Suuriya maadaama ay ku dhex taal marinka taariikhiga ah ee isku xidha Baghdad Dimashq iyo xeebta badda sanadkii 1916 heshiiskii caanka ahaa kaas oo Faransiiska iyo Ingiriiska ay ku kala qaybsadeen bariga dhexe wuxuu dhigayay in Golan High uu hoos yimaado amarka Faransiiska ee Suuriya kadib dhammaadkii muddada Faransiiska Suuriya waxay la wareegtay Golan High inay tahay barxad military oo saafi ah iyo xoojin oo ay u adeegsatay dagaalka ka dhanka Israa'iil labadii dagaal ee 1967 iyo 1973 ee dhexmaray Israa'iil iyo dariskeeda Carbeed ilaa iyo 150 ka mid ah dadka degan Golan High ee Suuriya ayaa ka dhigtay intooda badani in ay barakacaan waxaana bedelay in ka badan 20,000 oo Israa'iiliin ah laakiin muhiimadda ay leedahay Golan High xakamaynta dhulka sare ee Israa'iil dagaalkii 1967 waxay guul gaar ah u noqotay Israa'iil taariikhyahanada qaarkood waxay ku safeeyeen Golan High inay tahay Alsace-Lorraine ee labaad iyada oo loola jeedo gobolka buuraleyda ah ee u dhaxeeya Faransiiska iyo Jarmalka ee Faransiiska u dhiibtay guusha qarnigii 19aad muhiimadda Golan High u leedahay Israa'iil ayaa ah inay u dhiibtay saxaraha Sinai ee ay maamushay dagaalkii 1967 buraha Golan High waxay guul siiyaan militariga Israa'iil maadaama ciidanka Israa'iil ay buuxiyeen ciidankeeda iyo qalabkeeda kormeerka qiyaastii celcelis ahaan oo dhererkeedu yahay 1,000 mitir buraha Golan High ayaa u ogolaanaya Israa'iil in ay ka hortagto dhammaan weerarada lagu bartilmaameedsanayo ha ahaadaan gantaal ama weeraro dhulka ah waa hawl si cad u soo shaacbaxday sanadihii ugu dambeeyay ee dagaalka Suuriya markii difaaca Israa'iil ay joojiyeen gantaalo ay damacsanayd Suuriya inay ku rido Israa'iil si kasta ha noqotee marka loo eego horumarka weyn ee farsamada ee gantaalaha muhiimadda juqraafi ahaaneed iyo deegaan ahaan ee Golan High waxay noqonayaan kan ugu caansan ee Israa'iil dagaalkii ugu dambeeyay ee Suuriya waxa uu marmarsiyo u noqday Israa'iil in ay ku sii socoto hanashadeeda ugu dambaysa ee Golan High iyada oo loo tixgelinayo inay tahay difaac muhiim ah oo ka dhana xulufada taliska Asad taas oo ah Iiraan iyo Xisbullah falanqeeyaasha siyaasadda ayaa sheegay in waxa mideeyay siyaasadda Suuriya iyo Iiraan ay tahay in Suuriya aysan ka tanaasulin muhiimadda buraha Golan High iyo riyada in ay dib u soo ceshan doonto buraha Golan High waxaa loo kala qaybiyaa military ahaan iyo istiraatiijiyad sare marka la joogo Israa'iil maadaama ay tahay taalo ka soo baxda caasimadda Suuriya ee Dimashq iyo sidoo kale dhammaan magaalooyinka kale ee Israa'iil iyo qaybaha muhiimka ah ee Lubnaan iyo Jordan tani waxay u ogolaanaysaa cidda gacanta ku haysa Golan High military ahaan in ay beegsadaan mid ka mid ah aagaas iyada oo aan loo baahnayn hub casri ah juqraafi ahaan Golan High waa dhul baaxad leh qiyaasta wadarta dhulka
oo ku dhowaad 3 meelood laba ka mid ah ay ku hoos jiraan gacanta Israa'iil, waana meesha ugu muhiimadda badan istiraatiijiyadda iyo militariga Israa'iil. baaxadda dhulku wuxuu ku fidsan yahay qaab xariijimihiisu uu yahay 74 kilomitir dheeraar ahaan iyo 27 kilomitir ballac ahaan. magaca Golan High wuxuu ka soo arooray xilligii hore ee taariikhda ee Islaamka. taagan ayaa ku yaala meel 60 kilomitir galbeedka ka xigta caasimadda Suuriya ee Dimashq, halka ay ku taalo taa oo ka dhigaysa meel xuduud ah oo ay 4 waddan ku kulmaan: Israa'iil, Suuriya, Urdun iyo Lubnaan. inkasta oo Maraykanku u aqoonsaday madax bannaanida Israa'iil, haddana sharciga caalamiga ah weli wuxuu tixgelinayaa Golan High inay qabsatay Israa'iil oo ay ka tirsan tahay Suuriya xuduuddii 1923. muhiimadda dhaqaale ee buraha Golan High waxay ku jiraan khayraadka faraha badan, gaar ahaan beeraha iyo cuntada. Israa'iil waxay sheegtay in ka badan 5 meelood meel wax soo saarka canabka inay ka timaado buraha Golan High. marka lagu daro ilaa 40% hilibka lo'da, waa qiyaastii kala badh baahida macdanta cusub ee ay u baahan tahay. halganka ku saabsan khayraadka biyaha ayaa ah udub dhexaadka muranka Suuriya iyo Israa'iil ee 1960-meedyadii, taa oo horseeday inuu qarxo dagaalkii caanka ahaa ee 1967. muhiimadda istiraatiijiyadeed ee Golan High u leedahay Israa'iil waxaa lagu soo koobi karaa iyadoo siinaysa in ka badan 250 milyan oo mitir mubaarac oo biyo ah sanad walba, waxayna siisaa barxad lagu ilaaliyo meelaha ugu muhiimsan ee Israa'iil. kadib markii ay ku guulaysatay dagaalkii 1967 bishii May 31 1974, Israa'iil waxay ku wareejisay Suuriya 60 kilomitir oo laba jibaaran oo ay ku jirto magaalada Al-Qulaytara, iyadoo qayb ka ah heshiiskii Maraykanka u dhexdhexaadinayay. Israa'iil waxay xoojisay sharciga 1981 oo ay ku xoojisay sharci kale oo la soo saaray 1999 kaa oo dhigaya in dowlad kasta oo go'aansata inay ka baxdo buraha Golan High ay tahay inay hesho taageerada 70 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka. dagaalkii 6 maalmood, Israa'iil waxay ku darsatay buraha Golan High dagaalkii 5 Juun 1967 ee loo yaqaan dagaalkii 6 maalmood. waqtiga Israa'iil waxay jebisay weji ballaadhan oo ka mid ah wadamada Carabta oo ka dagaalamayay 3 weji oo ka dhana Israa'iil, kuwaas oo kala ahaa Masar, Suuriya iyo Jordan. dagaalka qarxay wuxuu sabab u ahaa sababo toos ah iyo mid aan toos ahayn. waxaa ka mid ahayd go'aamada iyo dhacdooyinka muhiimka ah ee dhacay ilaa bartamihii bishii May 1967 oo ay ka mid yihiin dalabkii Masar ee ahaa in ciidamada qaramada midoobay laga saaro Sinai iyo inay abaabusho ciidankeeda Sinai, iyo xiritaankeedii 22 bishii Maarso ee Strait of Tiran ee badda Cas oo wajahayay maraakiibta Israa'iil, taa oo Israa'iil u aragtay inay ku dhawaaqayso dagaal rasmi ah. sababta aan tooska ahayn waxay ahayd aragtida Israa'iil ee ahayd dhacdooyinkii ka dambeeyay ololihii Sinai ee 1956 oo ay u aragtay inay khatar ku yihiin amnigeeda. waxaana ka mid ahaa dhacdooyinkaasi kuwa ugu caansan ee ay samaysay Masar, gaar ahaan madaxweynihii xilliga Kamaal Cabdinaasir, dhaqdhaqaaqyadii Suuriya ee ka dhanka ahaa Israa'iil, iyo dhanka Urdun. marka lagu daro go'aankii shirweynihii Carabta ee 1964 ee Qaahira, kaa oo lagu go'aamiyey in loo weeciyo biyaha webiga Urdun labadaba Suuriya iyo Lubnaan, waxaana lagu aas-aasay ururka xoreynta ee Falastiin. gooldarro la yaab leh, ilowaradyadu waxay si wada jir ah isugu raaceen in tirada ciidamada Carbeed ee saddexda dhinac ay ka badnaayeen tirada ciidanka Israa'iil, waxayna ilowaradyadu sheegeen in farqiga weyn ee u dhexeeya ciidamada dagaalkii 1967 uu ka jiro waxtarka Israa'iil ee ciidanka oo ay ku tiirsan yihiin hubka reer galbeedka ee Ameerika, Ingiriiska iyo Faransiiska, adeegsiga hubka, qalabka awoodda abaabulan iyo hogaamineed, iyo shaqaalaysiintooda, taa oo ka duwan saddexda ciidan ee Carbeed marka laga reebo ciidanka Jordan oo ay ku tiirsanaayeen hubka midowgii Sofiyeed. 8
45 subaxnimo oo isniina 5 Juun Israa'iil waxay muddo 3 saacadood ay fulisay duqeymo xagga cirka ah oo ay ku qaaday Masar gaar ahaan Sinai, Dalta iyo dooxada Niil iyada oo laga jawaabayo duqeynta Israa'iil. ciidamada cirka ee Urdun ayaa duqeeyay garoonka diyaaradaha ee Israa'iil ee u dhow Kafar Sakiin. dhaga kale diyaaradaha dagaalka ee Suuriya waxay duqeeyeen warshadaha saliidda ee Haifa iyo saldhigga cirka ee Israa'iil ee Masjidu, halka ciidamada Ciraaq ay duqeeyeen magaalada Natanya ee xeebta Mediterranean-ka. tallaabooyinka ayaa keenay in Israa'iil ay duqeyso dhowr garoon diyaaradeed oo Urdun ah oo ay ku jiraan garoonka Al-Mafariq iyo Ammaan, ayna burburiyeen 22 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah, 5 diyaaradood oo kuwa xamuulka qaada iyo 2 diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca. waxayna sidoo kale Israa'iil duqeysay garoomada diyaaradeed ee Suuriya oo ay ku jiraan Damiro iyo Dimashq. waxayna weerareen saldhigga cirka ee E3 ee Ciraaq. 6 maalmood ee dagaalka socday, Israa'iil waxay awood u yeelatay in ay qabsato aag u dhigma 3 jibaar dhulkii ay maamushay 1948, kaas oo qiyaastii ah 70,000 oo kilomitir oo laba jibaaran. xasuusta reer Israa'iil waxay mar walba dib ugu noqotaa dagaalkii 1948 ee ka horreeyay ku dhawaaqista Israa'iil oo dowladda. wejiga hore ee Golan High waxay goobjoog u ahaayeen mid ka mid a dagaaladii ugu weynaa, iyada oo ciidamada Suuriya ay raadinayeen inay xaqiijiyaan gacan ku haynta Dimashq ee harada Tabariya iyo meelaha istiraatiijiga ah ee badda ka baxa badda Mediterranean-ka iyo Haifa. reer Israa'iil waxay xasuustaan sida Golan u noqotay caqabad dabiici ah oo ay adag tahay in laga gudbo wejiga Suuriya, maadaama ay u adeegto istiraatiijiyad difaaca iyo weerar labadaba. in ka badan nus qarni kadib dhacdooyinkii dagaalka 5 Juun 1967 ee dagaalka Suuriya ee ka dhashay qabsashada Israa'iil ee buuraha Golan, maamulka Suuriya weli muusan soo saarin dukumiintiyo la xidhiidha wixii dhacay intii ay socdeen dagaalkaas. ka hor ama kadib, ciidamada Suuriya maysan soo saarin wax dib u eegid farsamo ah oo ku aadan howlahooda. aragtida dadka qaar ee dagaalku wuxuu u muuqdaa sidii mid laga soo bilaabo warbixintii sirdoonka ee Sufiyad ilaa Masar ee ku saabsanaa abaabulka Israa'iil ee ciidamadeeda jidaha hore ee Suuriya, iyadoo ujeedadu tahay in halkaa laga bilaabo dagaal. wasiirkii hore ee gaashaandhigga Suuriya, Mustafa Talaas, oo ahaa abaanduulaha guutada 5aad ee gaashaaman ee dagaalka, waxa uu markaa noqday madaxa shaqaalaha ciidamada Suuriya. waxaa la rumaysan yahay in Raashiya si ula kaca ay u horeysay dagaalka ee gobolka Bariga Dhexe, waxayna hubaal natiijada ka soo baxda ay noqon doontaa middan ugu jirto Israa'iil. taasi waxay ka dhigaysaa Carabta inay u baahan yihiin hubka Sufiyad iyo midowgii Raashiya. ilaha qaar waxay sheegayaan in Kuwaytariya aysan ku dhicin gacanta Israa'iil markii laga shaaciyey raadiyaha Dimashq oo taageerayay xanta ku faafaysay reer Suuriya oo sheegayay in Xaafid al-Asad oo ah wasiirka difaaca ee wakhtiga uu ku wareejiyey Golan High reer binu Israa'iil, waxayna ku bedelanayeen kaalmadiisa ku aadan sidii xukunka uu gaadhi lahaa. xusuus qorka wasiirka difaaca ee Masar ee xilliga Shamis Badran wuxuu sheegayaa in Kamaal Cabdinaasir uusan dagaal rabin sababtoo ah sababa jira awgood oo ay ka mid yihiin in ciidamo fara badan oo Masar ah ay ka tirsanaayeen ku lug lahaanta dagaalka Yemen, uuna keliya doonayay inuu u hanjabo Israa'iil. kadib waxay heleen macluumaad ka yimi Sufiyad oo sheegaya in Israa'iil diyaarinayso inay garaacdo Suuriya. Xaafid Asad waxa uu rabay inuu ka hortago Israa'iil, laakiin buuraha Golan High ee Suuriya ayaa weli ah ereyada ugu muhiimsan ee dagaalka. marka laga soo tago sababta uu qarxay ayaa ahayd warbixin sirdoonka Sufiyad oo ka digayay in Israa'iil ay weerar ku qaadayso bilihii ugu horeeyay ee 1967, waxaana lagu calaamadiyey gubidda hore ee Suuriya ee Israa'iil. isbeddelka guud ee ka jiray gudaha Suuriya waxa uu ahaa in militariga la kordhiyo Suuriya si loo soo afjaro waxay ugu yeedheen dhibaatada Golan High. si kasta oo ay ku dhacday, buuraha Golan High ilaa maanta waa istiraatiijiyad muhiim u ah Suuriya oo aysan ka tanaasuli karin, iyo istiraatiijiyad kale oo muhiim u ah Israa'iil. markuu qirayo madax bannaanida Israa'iil ee buuraha Golan High,
madaxweynihii Mareykanka Donald Trump waxa uu taageersan yahay qabsashada Israa'iil ee dhulkan wuxuuna sidaa u sameeyay su'aal ah maxay tahay awoodaha akhlaaqeed ee khaldan ee ay sameeyaan kuwa kale sida Russia qabsashadiisii Crimea